Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cabdullaahi Yuunus Xasan oo idin leh jimco wanaagsan, jimco mubaarak. Waxaan hadda idin soo gudbin doonaa GB WhatsApp sida loo update gareeyo. GB WhatsApp 3 bil ama bil kadib, aan dhaho bil kadib, mar walba waa la update gareeyaa. Version waxaa loo sameeyaa mid cusub. Hadda waxaan ku jirnaa 2022. Versionka uu marayo 2022 iyo bil kadib versionka uu noqon doono intaba waxaan idinka tusin doonaa GB WhatsApp. Marka haddan ila daawada. GB waa kan waa soo furay. Saddexdan dhibic aad taabanaysaa si aad micnaha u update gareysid. 3 dhibic marka aad taawatid waxaad ku dhufanaysaa GB settings aad ku dhufanaysaa. Kadib waxaa ku soo baxayo baaladan. Waxaan ku dhufanaa marka meesha ku qoran tahay updates oo jadiidan. Updates marka ku dhufto waxaan ku sii dhufanayaa marka rabo inaan update gareeyo update from web midkan ugu dambeeyo aan ku dhufanayaa. Marka versionka uu marayo GB WhatsApp waxaa lagu ogaanayaa GB WhatsApp Pro V18.0 meesha ku qoran tahay oo ujeedaan. Waxaa laga waraa Vs waxaa laga soo gaabiyey version. GB WhatsApp Pro V waxaa laga soo gaabiyey versionkii 18 ayuu maraa marka. Bil kadibna way update gareyn doonaa marka mar walba markaad u baahdo inaad update gareyso. waxaad ku dhufanaysaa update from web aad ku dhufanaysaa markii aad rabto inaad update gareyso. Balse inuu ku update gareysan yahay ama uu yahay versionkii ugu dambeeyay inaad isticmaalayso waxaad ku ogaan kartaa kor meesha ku qoran tahay check for updates. Marka ku dhufato waxaa ku soo baxayo qoraal ah ani hadda ma soo baxay micnaha mar hore ay update gareeyay. Marka waxaa ku soo baxayo waxaad micnaha haysataa you have latest updates. waxaad haysataa micnaha midkii ugu dambeeyay. sidaas oo kaleeta ayuu ku soo qori doonaa. Hadda waxaan haystaa versionkii ugu dambeeyay oo 18 ayaan haystaa. bil kadib ama hadda hadduu update kaaga baahan yahay waad tijaabi kartaa. Aniga hadda waxaan ku tusaa marka sida loo update gareeyo. waxaan leeyahay marka update from web wuxuu geenayaa Chrome-ka oo ku sii dhufanaya marka. Okay, Chrome-ka waa kan. haddii aad doonto waxaa ku dhufan kartaa download meeshan cagaaran ama hoos ayuu sii soconaysaa. waxyaabo badan ayuu ku soo saaraa marka kuwan haddii aad doonto akhriso haddii kaleetana waa is dhaaf kartaa markii waxay tahay muhiimadda inaad update gareyso. Download ayaan ku dhufanaa marka aan ku dhufto waxaa ii soo baxayo sidatan shaashada ay noqonayso. kadib waxaan leeyahay download kadib wuu soo degayaa. markuu soo dego kadib install ayaad leedahay. markaas waxaad leedahay install. okay WhatsApp GB updatekiisa oo soo degay waana kan sidaad u jeedaan. download complete ayaa ku qoran oo ku dhufanaa markii soo soo qoray. laba mid ayuu ku soo qori karaa hadda. mid inuu si toos oo ku dhaho install sida tan hadda ujeedaan iyo mid inuu ku dhaho reinstall inaad dhankan aad u soo wareejiso. laakiin aad install ayuu ii soo qoray. install ayaan leeyahay marka. hadda waxaa soo qoray done iyo open. kadib waxaan leeyahay done. update ayuu ii yahay.